بسم الله الرحمن الرحيم سورة الزلزلة سورة أيضنا وسورة مكية علماء قارنة وحيلة ومدنية أيضنا هل ما ديك والرميس أرنتك والرميس وقيامة إذا قرتي زلزلت لقلقله الأرض ملكي زلزالها قلقلت ديدا كوهبون قلقلت ديدا كوهبون يدمركي لقلقله وأخرجت أي صوصارته الأرض ملكي أثقالها عليسيال كذا أي صوصارته wax alla waxa gudaheeda ku jira cuslaynay oo ama mid ku dhintay ama dahab ah ama fidda ah wax kastoon iyada ahayn ay iska soo saarto oo waqala uu yiraahdo al insanu insanki ma maxayba laha iyada u sugnaaday war maxay leedahay maxaa ku dhacay yawma idin maalinka intaasi ay dhacdo ayay tuhadithu warami dhulkii baa waramay akhbaaraha wararkeeda ayay waramay waxay sheekahayso dhan maalinkaas sii deynaysa بأن ربك أيا أوحاء وحيودي لها إيض ما حيوها الله يساء والرميسة صوته معيتاي بأن ربك بسبب أن ربك أوحاء إنه وحيودي لها إيض إنه وحيودي السبب تيبك والرميسة ما ينسكها الله يساء ربي وحيود هذا الجيري يومئذ مالك أيا يصدر فليان الناس ضدك ويفليان معناه واحد ويكتك يوم حاجي كفليان قبورتي كسو فليان قيامتي يمشي تاغنا تاغنا اللي اسكو حسابيني بي كفليان اشتاتا ايغو او كو كلا تكسن ايغو كلا تكسن او كلا قديسن بي ميشه كفليان ما حي فليان ليروا ان لا تصدرت اعمالهم اعماشود ان لا تصدرات waxay adduunka soo shaqeysteen in la hor dhigo oo la tusodaradeed bay u fulayaan faman ya'mal iddi samaysay mar iddi samaysa مثقال ذرة ذرة وح قدر كذا أو خيرا خيرا يره أركيه ومن روحي يعمل سمية مثقال ذرة ذرة وح قدر كذا يقياس كذا شرا أو شرا يره أركيه لولك قرمو قلقلنا يلا الروحية وأمرك أدونك قبقبية هاي لولك مركي للروحو قلقلد إيا الروح دي كوها بورين للروح زلزالها وحويان شيء والبروح شديسه iyo gilgilashadiisu waa mid isaga ku haboon mesela shay yar oo xajmigiisu yar yahay marka uu ruuxmayo oo la gilgilayo iyo shay ka weyn marka la ruuxayo soo ma kala dhulka ruuxashada uu ruuxanayo gilgilida la gilgilayo waa mid isaga khaas ah waa mid ku haboon way macna oo weynankiisa iyo xilliga uu joogo iyo xaaladda taagan iyo ku haboon way macna midda iyada markii la gilgilo dhulkuna uu soo saaro waxyaabaha culayskiisa uu soo saaro asqalaha wax kasta oo cuslaynayo soo saaray meydkii lagu dhex aasay waa iska soo saaray banaanka soo tuuray wixii gudihiisa ku jiray culays ku ahaayo dhanna uu banaanka u soo saaro insaankuna uu yiraahdo maxay leedahay maalaha dhulka maxaa ku dhacay war dhulka waa kii la dul deganaayo lagu kornoolaayo dadka lagu aasan jirayo saxarada la dhigi jirayo waa kii hayinka noo ahaayo noo ogolaaye isbedelkani muxuu yahay dhulkii waa xanaaqay wax walba waa iska soo tuurahaya waa gilgilanaya deganaanshihi waa lumay su'aal buu isweydiinaya maalaha maxay leedahay war dhulkan maxaa u sugnaaday oo ku dhacay waa loo jawaabay yawma idin tuhadithu akhbaaraha intaasi markay dhacdo ayuu dhulku warrami doonaa wararkay hayso dhanba sheegi doonta oo maxay war haysaa warkay hayso inaga haynagu dhulkan aad arkaysaan muxuu warhaya wax dhacayo dhanba isaga hayaba soo ilaa isaga korkiisa lagu sameeynaya kii macsiyo galay kii dambi galay kii gaalnimo sameeyay kii wax dilay kii wax kharibay kii zinaystay kii been sheegay kii waxantay ilaa korkiisa baa lagu sameeynay war waxay haysay oo dhan maalinkaasi yaani wax weyn ay furaysa laga dhigaysanay laana waa marqaati ka caysaayo dadkii wax ku sameeyay bay ku marqaati ka caysaa waa sheekaynaysa macna yaani saas leen goobjoog bay ahayd tayib waxa laga jawaabayaa marka waqala al insanu ma laha dhulkii markuu dhaqdhaqaaqay oo ay waranto oo xaaladdu isbedesho insaanku soo su'aalis ma weydin maxay leedahay soo ma dhig maxaa ku dhacay bi anna rabbaka wa halaha jawaabtu waxa weeye rabbiga baa u waxyooday dhulka aad arkaysa rabbi baa u sheego hadal yiri hadii rabbi hadal yirina waa inay hadasho hadii dhaqdhaqaaq la yiri waa inay dhaqdhaqaaqdo insaanu su'aashaada ma laha meesha ma taalo jawaabteedu waxa weeye rabbi baa amray sida yeel yiri ayaduna rabbiga bay ka amar qaadanaysaa subhanahu wa ta'ala maalinkaasi sida wax u dhacaan ayaa dadku ay fulayaan oo ay ka soo fulayaan xagee ka fulayaan yasduru sudurka fulitaanka leh xoolaha marka inta la waraabiyo ceelka laga celiyo ka si tagayaan baa la yiraahdaa sudur fulitaan leh
macnaha waxaa laga dhigayaa meesha marka la keeno la xisaabiyo addoommada oo ruux walba xisaabtiisi la hordhigo maxkamad la saaro maxkamaddii waxay ku dhammaanaysaa addoommadii inay fulaan oo dareeraan xaggee u dareerayaan ma hal meel baa la wada aadaya ashtaatan ayagoo wada kala gedisan bay dareerayaan oo fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir qaarna jannay u dareerayaan qaarna naar bay u dareerayaana ashtaatan waa kala gedisan yihin ninba jidkiisuu qabsadayo gurigiisii buu aaday ninkii hoygiisu uu naar ahaana naar buu aaday kii janno u ahaana jannu aaday saas daraaddeed rabbi wuxuu yidhi liyuraw acmaalahum acmaashay adduunka soo shaqaysteen in la tuso oy arkaan oo abaalgudkeedii ay arkaan oy qaataan daraaddeed bay u fulayaan oo meesha uga dareerayaan rabbi subxana wa tacala marka wuxuu yidhi wax yar shayka ugu yar oo khayr ah ruuxii samaystay adduunka maanta waa arkaya aakharo shay jira kan ugu yar oo shar ah ruuxii sameeyeyna waa arkaya maanta saas macnaha yani waxa weeyaan miisaanka maalinka wax lagu miisaamayo waa miisaan aan maanta wax lagu miisaami karin maanta mawaasiinta aan haysanno waxyaabaha sidaa u yar oo kaleeto ma miisaamaan darrada waxaa la yidhahdaa ama waa quraanjada yar ee aada u yar dhurcasada la yidhahda ama waxaa la yidhahdaa bustu markay kacdo busta xabad kasta oo ka mid a waxaa la yidhahdaa darra la yidhahda ama darrada waxaa la yidhahdaa shay kasta oo jira waxa ugu yar baa darrada ishu ma qabato waxyaabaha ishuba aynan qabanaynin maanta haddii miisaankeenna la saaro ma waxbay ka bedelaysa ya labada kafadood maalan haddaad midna darre saarto midna aada rodol saarto darradaasi ma waxbay ka bedelaysa wax alla waxay ka bedelaysa ma jirto mawaasiinta adduunka maanta taalla darrada maba qaban kartaba laakiin maalinkaa aakharo wax kasta siduu dooniba ha u yaraadee miisaanka aakharo waa qabanaya waana lagu marinaya hadduu shar ahaana waa lagu marin hadduu khayr ahaana abaalkiisa adeelisa mana marka taasi waxayna baraysaa sharkana yareeya khayrkana badsada saasaa la leeyahay mana aayadda nebigu wuxuu ku sheegay sal lay waslam hiya aljaamicatu alfaadda buu nebigu sal lay slam waa aayadda qur'aanka aayadaha ugu kulmin badan khayr iyo shar bay ka mid tahay faman yacmal mithqaala daratin wuxuu dooni ha ahaado sharan man yacmal mithqaala daratin khayran intuu dooni haleekaado wuxuu doonin ha ahaado waxay ka tagtay maba jira faado weeyaanoo aayad la mida maba jirto oo waa keligeed buu nabigu ku tilmaamay salawatu rabbi waslamu aleyh saas weyaan idaa goortii zulzilad la gilgilo alardu dhulkii zilzaalaha gilgilideeda ay mudan tahay markii la gilgilo oo wa akhrajad ay saarto alardu dhulkii afqaalahaa culaysyaalkeeda ku jira markay banaanka usoo saarto oo wa qaala uu yidhahda alinsaanu insaankii maa maxayba lahaa iyada u sugnaaday maxay leedahayoo u gilgilanaysaayoo usoo saaraysa waxa gudaheeda ku jira yowmaidin maalinkaasay tuxadiu warrami ahbaarahaa wararyaalkeedii bay warrami xadiis baa halkaa kuso arooray lakin waa daciif uu soo saaray axmed iyo tirmidi xadiiskaasi ma sugna biana rabbaka rabbiga ayaa awxaa waxyooday lahaa iyada u waxyooday oo u sheegay inay gilgilato in ay soo saarto inay hadasho rabbigaabaa u waxyooday yowmaidin maalinkaa ayaa yasduru ay fulayaan annaasu dadkii way fulayaanoo meesha la taagan yahe layskula xisaabtamayay ka fulayaan ama qubuurtay kasoo fulayaan ashtaatan ayagoo kuwo kala tagsan oo kala gedisan ah xaal ay kala gedisan yihin oo kala tagsan yihiin maxay usoo fulayaan liyuraw inay arkaan darteed in la tuso dheh in la tuso daraaddeed acmaalahum camalyaalkoodii in la tuso daraaddeed abaalkoodii waxay soo shaqaysteen iyo midhihii ay soo beerteen inay maanta goostaan oo camalkii ay shaqaysteen abaalgudkiisii la tuso saas darteed bay u fulayaan faman ruuxii yacmal sameeya marka mithqaala daratin dhurcaso ama shay jira kan ugu yar wax la miisaan ah oo la qadar ah khayran oo khayran ruuxii sameeya yarahu wuu arkaya waman ruuxii yacmal sameeya mithqaala daratin shay jira kan ugu yar qadarkiisa iyo culayskiisa wax la eg oo sharan shar ah yarahu isaguna wuu arkaya khayr ka badso hana xaqirin haba yaraade sharkana iska jir hana ku fududaanin oo ha fududaysanin intuu dooniba ha yaraade hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam